Hogaamiyaasha Qubrus Turkiga iyo Greek ayaa shalay ku kulmay Geneva si loo helo meel ay wada hadlaan jasiiradda kala qaybisay ee badda ku taala oo ay taageeraan UN-ka 4 sano ka hor markii wada hadaladii nabadda ee ugu dambeysay fashilmeen. Reuters ayaa warisay Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in xaqiiqada dhabta ah ee rajada laga qabo horumarka laga gaaray wada hadalada muhiimka ah ee dib u mideynta Qubrus uu ku boorinayo dhinacyada Greek iyo Turkiga ee Qubrus inay ka qayb qaataan qaabkii ay u noqon lahayd dawlad ka madax bannaan labadaba. Hogaamiyaha Qubrus ee dhanka Turkiga Ersin Tatar ayaa sheegay inuu rajeynayo soo jeedintiisa xalka labada dawladood inay keeni doonto aragti cusub. Dooda toddobaadkan ku dhexmari doonto Geneva inkasta oo Qubrusta Greek ay hore u diideen fikirkaas. Waxaan halkaas u tagayaa Geneva si aan u soo bandhigo himiladayda cusub, aragtidayda cusub waa laba dawladood oo madax bannaan oo ku wada nool jasiiradda dhinacyadeeda, xiriir wanaagsan oo darisnimo. In ay iska kaashadaan si kastoo ay tahay si kor loogu qaado Qubrus waa in ay labadooda isfahmaan. Dhinaca kale hogaamiyaha Greek Cyprus Nikos ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee dadaalka cusub ee Qaramada Midoobay uu yahay in la helo meel la wadaago oo lagu sii wado wada hadallada ku saabsan arrinta Qubrus. Qubrus waxaa loo kala qaybiyay koonfurta Greek iyo Qubrusta Turkiga ee waqooyiga maadaama ay tahay dawladda damaanad qaaday ama aqoonsatay Turkiga. Waxaa sidoo kale lagu casuumay Geneva Greek iyo Ingiriiska labada Qubrus ee jasiiradaha ah. Sanadkii la soo Turkiga iyo Qubrusta Turkiga ay taageerto waxay soo jeediyeen qaab laba dawladood ah oo jasiirad ah. Sidoo kale Qubrusta Greek taageera wuxuu sheegay inaysan aqbali doonin sababtoo ah wuxuu sharciyeyn doonaa kala qaybinta dalka.